shaqo gobolka Awdal magaalo madaxdiisa Boorame gaar ahaan wasaaraddeeda madaarka caasimadda gobolka Boorame hawshaasoo muddo soo jiitamaysay wax ka qabadka airportka xagga xadeynta dhulka iyo kablowga hawlihii shaqo ee madaarka oo duulimaadyo deg waqti dhow bilaabmi doona iyo qaar kaloo ku daba jiraba sidaas awgeed maanta waxa aan halkan u sheegayaa bulshada gobolka Awdal in dawladda ay ka go'an tahay in hoggaanka uu yahay Axmed Maxamed Siilaanyo in dhammaan dalka gagooyinka diyaaradahooda dib loo wada habeeyo oo lagu socodsiiyo si loo fududeeyo hawl socodsiinta xagga bini'aadmiga xagga ganacsiga xagga maalgashiga intaba sidaas awgeed waxa aanu si aanu hawsha u bilowno muddo sugaynay xadeynta oo sal oo ah madaarka waxaanu soo casuunay khubradii qaabilsanay hawlaha madaarada gaar ahaan gagooyinka diyaaradahu ka soo degaan oo hay'adda ECAO engineerkii ka socday ajnabiga ahaa iyo laba Soomaaliyeed reer Somaliland intuba way yimaadeen hawshaasana sal u noqon doonta xadeynta airportka wixii inta ka badanna faahfaahinteeda gudoomiyahan u deyn doona laakiin waxaan idin sheegaynaa in sida ugu dhaqsaha badan leh airportka hawshiisii loo bilaabi doono diyaarad ganacsi oo u kala gooysi doonta waqtiga xagaaga Hargeysa Boorame iyo Djibouti oo bilaabi doonta hawlaheedii duulimaadyo ayaana u ah gogol xaad hawshan aan wadno oo si ay u bilowdo kuwa kalena way ku soo xigi doonaan ama xagga ganacsiga ha noqoto kaarkooga ama kuwa kale ha noqoto sidii kolba aynu hawlaheena u fududeyno ayay shirkaduhuna u iman doonaan waxaan se iyaro dardaarana aan gelinayaa halkan oo la hadlayo bulshada gobolka gaar ahaan caasimadda siyaasiyiin aqoon-yahano walaado dumar dhalinyaro culama madax dhaqameed wax qoys baynu nahay qura ma kala nihiin laba ma kala nihiin saddex ma kala nihiin waxba meel qurayn wax wada soconaa dad qurayn wada nahay haddaan gacmaha la isqabsan waxba hagaagi maayo waxaana tusaale idin ah gudoomiyaha gobolka idin jooga maanta Cabdo Aayir wuxuu ahaa gudoomiyihii gobolka Togdheer airportka noogu dhibta badan la buu ahaa oo sidii dagaalada looga soo noqday ahaa meesha quree qofkii yimaado magaalada uu tago muddo dheer ayay cidna ku dhici weeyay maamuladii hore oo dhan gudoomiyaha gobolku markuu yimid dadweynihii abaabulay la kaashaday ganacsatadii la kaashaday aqoon-yahanadii la kaashaday qurbajoogii waxa uu soo dhigay qorshe airportkii xadeyntiisii lagu sugayo ummadiina u cuntatay maantana aynu ka aragtaan hawsha ka qabsatay garoonka Burco ee gobolka Togdheer oo saldhig u noqday maanta ganacsiga shidaalka diyaaradaha oo ku bilaabmay shirkadihii shidaalka baariyay imanka midkii kala ganacsigu bilaabmay hadda kuwa hilibka insha Allah bilaabi doona waxa soo dhan waxa salooha isqabsiga gacmaha bulshada iyo dawladda iyo dadkeedu gacmaha soo qabsadeen marka ma nasiibba maanta u haysataa gudoomiye khibrad u leh hawsha sidii loo dhaqaajin lahaa annaguna wasaaradahan waan ku gar taaganahay waan la wadaynaa hawsha waan wixii uu nooga baahdo hiiliyo farsamo gacan xidhxidasho diyaar baan uga nahay dhinac kasta laakiin waxa ogaataan haddii bulshadu ka maqan tahay waxba ma hirgelaya dawlad wax lagu haleeya dawladii siyaad baray ugu dambeysay dawladda waxba loo tilmaamo waxba la qabsadaa wadooyinka Hargeysa ka dhismay kuwa Boorama ka dhismay kuwa Galbeed ka dhismay dadweynaha iyo dadka wada qabsaday wax in badan baa la soo jiray wadooyinka cilmi samayn karayso maantana meel badan baad arkaysaa oo dadweynihii iyo dawladii hoose iskaashanaya macnaheedu maaha dawladdu
ما قبل كرش نجد شيء كينو بدولة كوش قيسة ونقول شيء كينو يكال دري عشوري هاي ناول بحنين أنا نقوليه اللي كبحنين أنا معاش بزنس اللي كبحنين ده يدنا دخل معاش مركا أنت اللي كو حبسانتم اللي هندنتي نقشر حق الدولة اللي كجا حبسانت مركا تاس مد حقلية أو إن أي نقعان تسقطان دولتنا مد هوسة يمد يمد سراء أنتم بديار بيموتي كان حدين كان لبك المدود كأوراني خبرات المارت التمد إيجيسا ما ها خبراء يقولون لسكسو كحيسرين لح بلاد أيام إبرك كتشرني لينك سيدني كالله هلا وقت الله وحده وأي نقول قرار لبشقيا ربنا كلام قبلك نيروبي تجيهين ربنا كلام قبلك كلام لا شقيا كوا سوماليا دنا عقب فرب لا شقيا كينيا لا شقيا marka waa inaad xaj sii gashaa marka dalbanayso 6 bilood ka hor ayay sameeyeen xajka inuu maanta yimaado bisha 12 xitaa waa rabadaan isagu ma aha min muslima meel wax ka cunuun ya hadana qasab ay ku noqotay waqtiga banaan wuxuu inoo sameeynayaa cabirka ma aha wax daaqada maanta ku ka oranayo waa taasi waa daraasadiisi iyo bugaagtiisi iyo wixii uu isku wada eegaya uu soo sameeynayaa maab uu soo sameeynayaa maabkaasoo noqonaya kii kaba dambaysta ah ayuu deetire ku soo wareejinayaa dawladda waxaan u keeni doonaa barasaabka meeyarku inoo iman doona isaga la warka la saaka deetire kaba dambaysta ah ayaa la isla qaadanayaa oo deetire in maabka dawladda hoose degmada Boorame ayaa la gelin doona si ilmahiisu uu ogaado dhulka xadeyntiisa inuu leeyahay airport algu ka tagina sidee dasalood ay airport xidna shaqaale mushaarkiisa uu qaadanay halkaas ay joogay shaqaale kaba socoto marka airportka dawladdu ma xidina ganacsiga ayaa wareegay ganacsiga inay soo jiidan ayuu leenahay waana u kori doontaa marka shaqaale badan iyo qaar xirfad leh qaar kale ajnabi way iman doonaan isweydiin badan oo isweydiinayna bulshaahan maxamed arkii Boorama muxuu ahana qaadi waayay muxuu hawlgeli waayay sababahaas ayaa sabab u ah madaarku wuxuu u baahan yahay xuduud uu leeyahay in diyaaraddu ay ka haadi karto inay diyaaraddu ka laaban karto in aan loo soo dhawaan karin oo loo soo jirsan karo in safety-geeda iyo iyada nabadgelyadeeda iyo nabadgelyada bulshada ku agdeganiba ay sugan tahay oo ay leedahay waxyaabahaas oo dhan waxaa qiimaynta ku sameynaya injineerada ayaa qiimaynaya markay sugantana waxay iman doontaa inuu xadkii dhabta ahaa ee ummadaarku yeelan lahaa isla qaadano oo ummadaar noqdo markaa xuduud leh xuduudiisaasna ku shaqeeya runtii intuu inooga maqnaa waa aqoontaas iyo sugista aynu kuyuga ku jiriyo waqtiga waxa weeyaan midna waxay saaran tahay mas-uuliyadda iyo dawladda midna waxay saaran tahay shacabka iyo gobolka dawladda waxaa saaran madaarka sidii uu u hana qaadi lahaa ee uu hawlgeli lahaa in ay qabtaan farowgeed oo mas-uuliyadda koowaad leh oo maanta inagala fadhiyo agaasimihii guud ee wasaaraddu isagoo oo wada martidii injineer taasina ay ka marakacayso inay diyaar u tahay dhinacii xukuumaddu suuragelintii madaarka sidaa uu inoo caddeeyey bay ka mid tahay inaan madaarka aanay dawladdu dhinaceeda ka xidhmin shaqaalaheedii kuwii immigrationka kuwii madaarka kuwii customka dhammaan ay joogaan kuwii kaawo ay weli sidii u joogaan laakiin sababo ayaa had iyo jeer keena inuu dee diyaaradu waa ganacsi maaha diyaarada xukuumiya oo meel iska imaanaya waa diyaarada ganacsiya ganacsi bay ku shaqaynayaan haddii ay u suurageli wado ganacsigoodu waxay noqonaysaa markaa inay dee meel kale u wareegaan waxaan rajaynayaa maanta inaynu u diyaar garowno haddaynu bulshadii nahay dawladdu teedii waa u diyaar inay fuliso maragna maantay ka tahay oo ay nala joogaan inaynu inaguna haddaynu bulshadii nahay gobolka u diyaar garowno sidii ay inoogu suurogeli lahayd
inaynu madaar helno run ahaantii ma aha dowladda oo qura waxa wax qaban karaa waa bulshada iyo xukuumadda marba joogta oo iskaashado gacmaha isu qabsada wixii dadku uu gacmaha isu qabsadana way suura galaa runtii wixii ragu kaco dumarna garab galaan rabbina aqbalo way suuroobaan awal ragu baa laga dhigi jiray laakiin iminka dumarkaa ku xoog badan waxbixinta xaqiiqdii markaa in laga tago kaalintoodii iyagoo ka soo baxay waajib maaha horaysiinta iyagaana waxaan leeyahay aan u diyaar garowno sidii aynu madaarka u kicin lahayn waa laynala kaftamay kaftan dusmaabaa agaasimaha guud inoo mariyey diyaaradu de haddii cid raacay waayaan dee way iska fadhiisanayaanoo waa ganacsi waa laabanaya qurbajoogu waa fariin iyaga u gaara kuwa burco markaan madaarka burco hirgelinaynay runtii anigu ma samayn wasaaraddu haddaanay suuro gelinayn tanba waa fadhinay iminka haddaanay imaanshahooda noo iman oo xadka aanay keenin aqoontii iyo cilmigii injineeradii samaynayay dees inooma suuro gelaya madaarku iskama soo fadhiisanaysa diyaaradda aqbali mayso inay diyaaradii iska timaado wasaaradda leh mas-uuliyadda qurbajooggana waxaanu leenahay in badan baa naawulayseen mas-uuliyad baa idinka saaran cidda qura ee ka faa'iidaysanaysa ugu badan waa idinka u diyaar garooba inaad ka qayb qaadataan burco waxay kaga qayb qaateen runtii kaalin aad iyo aad iyo aad laxaadu leh oo aan gudajoogu kaga qayb qaadan ayaa qurbajoogu kaga qayb qaatay waxaan rajaynayaa in kaalintaas labanlaabkeed ay bulshada reer awdal ee qurbajoogiina ay kaga qayb qaataan ayaan idin rajaynayaa waxaan maanta laga bilaabo aan u wada hawlgalno waxaan ku dhawaaqi doonaa wada samayn doonaa iyo maayarkoo isu kaashanayna guddida horumarinta madaarka gobolka awdal magaalada boorama ayaanu si dhaqso ah u magacaabi doonaa oo ugu xilsaaran dibudhiska iyo dayactirka madaarka boorama runtii ayaanu dib ugu dhawaaqi doonaa u samayn doonaa bulshada dhexdeeda ay ka iman doontaan madaxda laftoodu ka mid bay noqon doontaa wasaaradda lafteeda ka mid noqon doonto eegista iyo hagista lafteeda iyadaa mas-uuliyadda koowaad ilaqoo iyana ka mid noqon doonta gobolka iyo degmaduba waa ku jiri doonaan sidaa darteed bulshada iyo salaadiinta iyo madaxda kale ee gobolka iyo aqoon-yahankuna ka mid bay noqon doonaan guddigaasaanu samayn doonaa guddigaasaa u xil saarnaan doonta annagoo guddida kala mid ah ayaanu haddana ku eegaynaa oo kagala shaqayn doonaa garoonkiibaa xidhmay garoonkiibaa caynkana haddaba qolo walba roolkeedaa buuxisay kol haddii ay wasaaraddii maanta socoto oo dhiijiigii iyo injineeradiisa ay nala socdaan waftigani ay u socdaanina ay tahay in la hirgeliyo airportka sidai u shaqayn lahaa innaga waxay nala gudboon inaynu roolkeena buuxino oo communitiga mid baa laga doonayaa dowladdana mid baa laga doonayaa dadka diaspora ee dibadda mid baa laga doonayaa annaga tii dowladnimo iyo nidaamkii procedurkii saxda ahaa in loo maro nidaamkii aanu waafajino ayaa lanooga baahan yahay bulshada halkan degan inay kala qayb qaataan wax kasta oo maanta looga baahdo siday horeba u caddeeyeen inay hiil iyo hobla garab taagan yihiin ay sugaan nabadgelyada iyo kala shaqaynta garoonka horumarintiisa dowladda inay kala qayb qaataan dadka diasporaha qolada ugu roolka weyn waa iyaga runtii haddaynu si caadi uga hadalno runtana waxaanu doonaynaa halkan inaan u marino in badan baa dadka dibadda jooga ay yidhaahdaan garoonkiibaa xidhan meel fog baanu ka soo degnaa intaasoo saacadood baanu soo soconnaa sidaa bartaabka hadda sheegayay inamadiisu waxay ka soo degeen berbera intaasoo saacadood bay soo socdeen waa caqabad weey waa mid la dareemi karayo koska ku baxaya diyaaradda wadin 20 daqiiqo gudahood ku keenaysa halkan inta aad u sii soconayso lacagta kaaga baxaysa intaasoo gaari baad karaysanaysaa waa wax maanta aanan inaga qarsoonayn runtii oo inoo wada muuqda dadka diaspora waxaa la doonayaa inay soo dhisaan garoonkooga kuwa ka soo dega inay noqdaan
إن هنتجليا كل إن هرمرك قبل إن وضنك ضدك دياسبر وآد بوقيب قاتين ونؤمنها كان نوح نقونا سا إيربوت كان نوح نقونا يا قيب سجون اللي حد أو صيح وجن وقدح مقابل كوجا متقرصوا إن متقرصون من نقونا كله ضدك لسوقي أنا وياك كوا كسود دقيقة لسوقي أنا كسود دقيقة أنا وياك كوا لقى ربنا لسانا وياك ضدك رالك وين قاضنا يا وياك أيا لوجا بين وسائر اللبسجيد وحويان يدو الشقة السديدين يقولتوا كانوا بدن بقى هذا لنا وصل دولانو سديدي سنة وجود بيلا شنت سنة وجود بي إيربوت كانوا وحدنا dadka dibadda waxaan ugu dacaydeen jiray wax ka soo degan nin dhintay meedun baa laga soo dejiyaa ama lagu dhoofiyaa baa loo jiray war ilaahay ka dhigo imaka dad nool in laga soo dejiyo ilaahay ha noo aqbal ducada bir rabaa baynu ku jirnaa waxaan jecelahay hadduu ilaahay yiraahdo garoonka hirgelintiisii xuduudihiisii kulli waa la sugay anagu hore waan uga qayb galnay barsaabku maqnaa barsaabku xigeenka nagu wehelnaanay taliyaha qaybta wixii aanu qabanay wixii ka qabi ahaa wasaaradii way timay waanu isla eegi doonaa farsamo halka ay noqoto aanu isla garanno uu noqon doona xuduudkiisu ma noqon doono mid la soo dhaafo wuxuu noqon doonaa mid halka ku eg haddii wax kale looga baahdana halkaas uma noqon si tallaabsanayna haddana duulay dhaw ma noqon doonto wax dib looga soo noqdo garoonku koraya say dadku u korayaan ayuu garoonku koraya waxaanu filaynaa diyaarado cargo inay yimaadeen halka ma aha un tan yar naqan inay timaado waa inaad fishaan tu cargo inay timaado haddii ay taasi timaado haddii la yiraahdo waxa la filayaa airport-kan inuu ka kordhi doono inta uu imika dhan yahay xagay ka soo fadhiisanayso uu fog yahay waan dadku waana diyaar waxaad moodaa halka ay ka kacayso inay guriyuhu soo dhawaadeen guryaha halka inay soo dhawaadeen ayaynu ognahay kulay farsamo ahaan waxay noo soo kordhiyaan inaynu sideeda hurgilno maanta hore meel baanu istaagnay meel bay nala dhaafi weydeen laakiin wixii laga maarmaan haddana sideeda loo fulinayaa maanta odayadii iyo dawladdii waa loo dhan yahay halka ay baashu ka maalin weydo waa la gaarsiin waana la durkin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo guryaha garoon la kordhiyuun iska daaya dadka riska ku tahay khatar ay ku tahay in dadka la badbaadiyana mas'uuliyad ba naga saaran anaga ka dawlad hoose ahaan meelaha la degayo dawladdu ayna wax naga saaran xil jeexjeexyada dhulka biyo mareenada dhulka noocaas oo kala waajibaad baa naga saaran meesha riskiga ay ku galayaan dadku inaanu go'aan ka gaadhno go'aan midaysan annaga iyo dawladda dhexe inaanu ka gaadhno iyo cidii kale khusaysay in hawshani oo wixii waa riski bay keeni kartaa hoos u deegi kartaa cilad baa ku iman kartaa dadka guryaha ku jira iyo inta u dhow oo dhan waxaan waa batrool leegura markaaba boodaya khatarta uu keeni karo waa la garanayaa inayna macnayn noqon dadku ayna sawireenin dhulkii baa la naga qaadaya ee ay u arkaan in iyaga la badbaadinayo dadka dibaddana fariinta halkan marnayna waxa weeyaan heel iyo hoobo waa la ka sugayaa garoonkii hal la dhiso anagu diyaar baa u nahay idinkana waxaanu idinka sugaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inaad kaalintiina ka qaadataan waxa nasiib wanaaga maanta degmada Boorama qolada kale injineerada ee noo tibadayana dadweynaha deegaanka inta dusha ka dhageysanaysa hadalladayada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta kadib aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigu waxaan la dardaarmayaa horta marka u horeysa haddii ilaahay keenay ciddii dayactiri lahayd halkan waxba ka odhan mayna waxaa leena soo dhawaada aad baan idin soo dhaweynayna laakiin waxaan la dardaarmayaa dadweynaha iyagii bulshada ahaa ee halkan joogi jiray ama dhulka marka horeba bixiyey bixinna doona sida loo sheegayo hadday wax noo soo kordhaan oo loo baahdo in diyaar loo ahaado nabadgelyadiisa iyo hawshiisa iyo haddii la waxtarkiisa shaqadiisa intaba in diyaar loo noqdo aan ka midowno riboodku wuxuu leeyahay dadka deganaa hareeraha ka yaala ee awal ma bixiyey salaadiin buu leeyahay odayaal kaluu leeyahay mutacalimiin buu leeyahay lafteeda siyaasiyiin buu leeyahay dadweynaha dibadda ugu maqmule waxaan leenahay intuba ka midowdo waxtarkiisa iyo waxqabadkiisa ha ka midowdo ha la soo shaqayso ha la shaqayso cidda dayactirka inoogu dibadday aan u baanayn waxaan leenahay iyagana soo dhawaada inaguna aanu diyaar garowno inaan soo dhaweyno waxna ka qabsanno waxna la qabano aad